السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا دمان أصحابتك وحرن كنال كواي أرق أكاديمي مقعد حسن عبد الله حسين وحن مانتا halkan idinkugu soo gudbi doona haddii ay booyin u karaale noqdo topic about reading marka mawduucani wax akhrisku ayuu ku saabsan yahay wax akhriskana dabcan kaaga sheekeyn maayo maanta inaan si guda gala ma rabo oo faa'iidadiisa dabcan waad ka dharagsan tahay oo wax akhrisku inuu yahay aasaaska waxbarashada dabcan taasi waa aad iga ogaal badan tahay marka ugu horeysa waan akhrinayaa kadibna waan sharxayaa insha allah. Okay, let's get started. Good morning, respected teachers and my dear friends. Today I'm standing in front of you to express my view about importance of reading. Reading is a habit that can make us all better person. Reading gives us knowledge and inspiration. It makes us smart. There are numerous examples of great people who emphasize on reading for a good and successful life. Reading develops our mind to a great people of ideas and thoughts. People share their experience in life and work through books. Reading books can be great help. Reading novels, biographies, poems, etc. entertain us. It helps to relax our mind. We try to keep whatever we read. Reading definitely is a healthy exercise for our mind. Reading improves our personal power. It improves our emotional health too. Reading books can also make us feel happy. Finally, a good book helps us grow our mind. When we read books, we remember a lot of things like name of characters, places, important events, and conversations. This helps to improve our memory. We also learn many new words, which improve our vocabulary and hence our communication skills. wahagaag haatanna waxaan u guda gelaynaa qaybta sharaxaadda balse inta aan u guda gelin waxaan boqolkiiba boqol ka codsanayaa inaad muuqaalka aad like garayso si asxaab kale uu u gaaro mahadsanid. Topic about reading mawduuc ku saabsan wax akhriska. Good morning, subax wanaagsan, respected teachers and macallimiinta xushmada leh. casharada noocan ah ee ayaanta aan soo geliyo intaad qorato ayaad ardaydaada iyo macallimiintaada aad ka horjeedin kartaa. waa casharo aad u qiimo badan run ahaantii. Good morning, respected teachers and my dear friends. subax wanaagsan macallimiintayda sharafta leh iyo saaxiibadayda qaaliga ah. Today maanta I'm standing waxaan u taaganahay in front of you idinka hortiina to express inaan caddeeyo my view aragtidayda about ku saabsan importance of reading muhiimadda wax akhriska. Reading wax akhrisku is a habit waa caado ama dabeecad that taasoo can make us inaga dhigi karta all dhammaanteen a better person shakhsi wanaagsan. Reading wax akhrisku gives us wuxuu ina siinayaa knowledge aqoon and inspiration iyo dhiirigelin. It makes us wuxuu inaga dhigayaa smart kuwa caqli badan. There are waxaa jira numerous examples tusaalooyin tira ah. Numerous waxaa la yidhahdaa waa nambaro ama tiro badan wey of great people dad ku fiicnaa dhanka wax akhriska oo great ah oo ku fiicnaa ama cajiib ahaa who kuwaasoo emphasize xoogga saara on reading akhriska for good and successful life nolol guulaysata oo wanaagsan successful guulaysata. Reading wax akhrisku develops wuxuu horumarinayaa our mind maskaxdayna wuxuuna ka dhigayaa to a great people dad fiican ayuu ka dhigayaa kuna fiican of ideas fikradaha and thoughts iyo fikradda marna adigaa dhiibaya marna waa ficilkii fikraddii weeye. Thoughtsna waa fikradda markii aad shay aad ka fikrayso ama fikir aad ka dhiibanayso. Good. People
dadka marka wax akhriska ku wanaagsani share waxay la wadaagaan their experience khibradooda ay waxay la wadaagaan in life nolosha and work shaqada through iyagoo u sii maraya books bugaagta reading books akhriska bugaagtu can be wuxuu noqon karaa great help caawinaad weyn buu noqon karaa haddaba beejka xiga muxuu ina leeyahay reading novels akhriska sheekooyinka biographies taariikh nololeedyada poems gabayada etc iyo wixii la midka ah entertain us wayna madadaalinayaan it helps waxay ka caawinaysaa to relax inay nasato our mind maskaxdaynu we try waxaynu isku dayaynaa to keep inaan ilaalino whatever wax waliba oo we read aynu akhrino reading wax akhrisku definitely waxaa shaki la'aan ah is a healthy exercise wuxuu inuu u yahay alaminto ama jimicsi caafimaad inuu u yahay for our mind maskaxdeena reading wax akhrisku improves wuxuu hormariyaa our personal power awooddeena shakhsiyadeed power waa awoodii it improves wuxuu hormariyaa our emotional health too dareenkeena caafimaad sidoo kale reading wax books akhriska bugaagta can also waxay sidoo kale make us inaga dhigayaan feel kuwa dareemaya happy farxad finally ugu dambayn a good book buka wanaagsani helps us wuxuu inaga caawinayaa grow our mind inuu kobciyo maskaxdeena when we read books marka aynu akhrinayno bugaagta we remember waxaynu xasuusanaa a lot of things ashyaa fara badan like sida name of characters magacyada dabeecadaha ama astaamaha places goobaha important events dhacdooyinka muhiimka ah events waa dhacdooyin and conversations iyo wada sheekaysiyada this helps haddaba tani waxay naga caawinaysaa to improve inay hormariso our memory xusuustayna we also learn waxaynu sidoo kale ka baranaynaa many new words ereya cusub oo fara badan which improve kuwaasoo hormarinaya our vocabularyna ama ereyada aynu garanayno and hence korna u qaadaya our communication skills xirfadayna isgaarsiineed ama dadka aynu la xiriirayno guud ahaan halkaa ayaan kusoo afmiraya casharkan aadka u xiisaha badan waxaan rajaynaya inaad intaad meel ku qorato aad akhri doonto muuqaalka la garay kanaalkana subscribe garay inta muuqaalka xiga la gaaray waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano allah